soo kabasho dhinac walba ah ayaa haatan ka muuqanaya degmada Xeraale ee gobolka Galgaduud oo muddo sanad ah ka nabdoon dagaal beeleedyada walaalaha hore ugu dhexmaray dhismayaal hor leh ayaa magaaladan ka soconaya waxaana dib u soo wada laabtay dadkii ku kala irloobay dhacdooyinkii hore si isku duubni leh ayay bulshada magaaladan ku nool u dhidbayaan adeegyada asaasiga u ah dadweynaha ee ku burburay colaadihii ama mashaariicdii aan horey u fulin sabab la xiriira ishaysashadii jirtay. dhismayaal ay ka mid yihiin saldhig booliis, cisbitaal weyn, iskuulo iyo xarun maxkamadeed ayay dadka reer Xeraale ku bilaabeen isku tashigooda si ay u dhameystiraan